بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وياي مقعد سعيد عبد العرو كان ترسل جامعة أمة الصوماليات يمدوا أرض الصوماليات ما أنت وحنا نتاجرنا إن كقيب قاضي استحقاق وحنا واجهين حرمتي جهير قيبتي فيالي جهير قيبت هراء جامعة أمة الصوماليات وحنا أرض جامعة أمة الصوماليات قيبتي جهير waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadanayo ololaha lagu nadaafinayo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed maanta wad u jeedaan meesha markii la bilaabay sida ay u wasaqda badneed iyo sida ay haddan xaaladeedu ay insha Allah wadankeena waxa u baahanahay inuu horumar yeesho waxa kaliya horumarkiisa ku fadhiyana waa dhalinyaro jeefka ka kacay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa jaamacadda ummadda qaybta dharkeenle waxaan ka shaqeynaynaa barnaamijka isxilqaan ku baaqay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukuumaddiisa Ra'iisul Wasaare Khayre maanta waxay noo tahay inaan ka shaqeyno annaga iyo maamulka degmada Dharkeenle iyo ardayda qaranka Soomaaliyeed waxaan ka shaqeynaynaa barnaamijka isxilqaan waxaana la jooga maamulka gobolka Banaadir waaxdiisa nadaafadda agaasimo goodax insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan qayb ka noqono barnaamijka isxilqaan bilicda jaamacadda dib u soo celino waa u jeedaan ardaydan tirada badan leh kunka ka badan maanta meesha isugu timid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo anigoo ah agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka dawladda hoose xamar iyo kan gobolka Banaadirba